عمر بن الخطاب رضي الله عنه سيردي سوحا كنت الله نبا أقيم دماركتان حقا يا أبا موسى الأشعري دولكو حكومي markaasuu ciidankiiba markaa warkooga u keenaa iyo dowladda islaamka sii fidaysay halkaa baan qabsanay intaa oo masaajid baan dhisnay intaa baa dad soo islaamtay intaa baa diintii la baraa meel heblaayaan ku duulay guushii baa ilaahayna siiyey xoolahana waan kuu keenay markaa buu cumar ku yidhi hal min muqarabati khabarin buu yidhi war ghariiba maxaad haysaa war ghariiba oo cusub markaa buu yidhi rajulun kafara bacda islaamihi والغريبة وحن هيا نن انتو سو إسلامي دب قال لماذا يقول نغضبا وركي سكوها يا بوري فماذا فعلتم به بكل ما حد قصة ما يسأل فقربناه بوري وصونا ويني فضربنا عنقه قرتا كبويني بوري من ارتد عن دينه فاقتلوه وصدوا حديث كل جاي موت وفي الدين تنسى نغضب محل قصة ما وين لدلو عمر ماذا حصل أو الروحي مياد بور مياد توبد إنه توبد كان عضو بدكتان أبو كويري حدو إن ديدنا جيل كما تكون حدان بور لعله يتوب ويراجع لقى يابا إنه توبد كانوا كسون وضا قال لي ماذا قعنتو عركه وتاقع عمر إلهو أنا إني دلان ما أمرين بوري ماشي كود لنا ما جوجين خبر كامركو يسوق قاعدين الرالي كما يهيبوري صحابة الشرع جاي مرن الشرع جاي لما خلافه لكن وحي قصد أن كنت سنيسا نحريست عمر قلبي جيس كجرتي إن أكون أضونتي وأنا رانا صوما كون بدي وضع كان يلجوج وكان أضونتي كلام حي حافظ أنا وش قساوة أضونتي مساجد حالي أن كهل لا يبع محرابك محراب وين بولها يو ميكروفون دي وحبوها جاجينه يمد موقته صلاه دي بان قال لي اسق halka buu fadhiyaa intii wacdiga wadana halka buu fadhiyo qalabkan waxbuha hagaajinay yar muadin aad u fiican ba markaan ku warniyo ninkan halka hudahum buu ku jiree muxuu yahay markaas waa qoladii kale buu ha waxa qoladii kale Soomaaliya diinta islaamka ma u bandhigtay baan ku ma u bandhignaa imikadan ba markaas kan la shaqeynaya ee muslimka u bandhigayo kitaabna waan siinay wuxuu in yari kaadiya waan soo fikirayaa fiicanta saas loo baahan yahay in qofkan loo naxariisto loo damqado qof maanta dab ku sii dhacaya dab adduumad ku eegi lahayd haba sheega walow isku diin baan cadowgaani baa noqdo cadow qofaatiina dab ku sii dhacaya ka waran wardabka kale wadabka ka jog wadab adduuyo asxaabta nabiga waxay arkayeen qofka gaalnimada ku dhimaya dabkii aakhirada ku dhacayo Umar ibn Khattab gacantu cirka u taag ilaahow anu ma amrin buu yiri meeshay ku dileen anigu ma joogin warka markuu ii soo gaareen anu raali kama yihiin ilaahay waad maqlaysaa wala naxariisan yeelano qofka aan naxariisan buu nabigu yiri ilaahay uma naxariisto nimba maalin masaajid baan galay buu yiri jamci hore iga baxay jamac labaad baan markaa arkay buu markaa mid anoo eegay masaajid weyn oo jaamaca buu ahaa oo Jabuuti ku yaala mid baa markaa igu yiri jamac ka labada qof ay imika isku xidhatay la xidho markaas aan la xidhay buu kabahaygi meel aan iga fogeyn halkaas aan dhigay buu kabeero cusub oo sandala salaadii mar alle markaan xidhay baan arkay buu kabtaydiyo kabtiyo gacan sii qaadayso waska waday buu salaadaydi safkiina uu dheeraaday salaadii mar alle markaan salaamu calaykum ka baxay ayaan kabihi baan waayay markaas waan eegay waan waayay qofka sii baxay waan waayay ku kalo igu ag tukanayay anna kabahayga ma hayo malaha 5-6 qof baan noqonay safka oo kaliya dadkii kaba hogi waayay nin markaa masaajidka xaaris ka ahaayo ilaalinaya xagga dambe maxaa ni helay warshanteedaba kabi wala naga qaaday markaas nin baa yiri allabadan dadka way sareen buu Allah ka qabto kii ku tujinayay kii ni tujinayay iyo kii ku tilmaamay shaqa ka wada dhaxaysay buu yiri xaga dhaxaysay bal sheeg
لو فرس إيمان كيني هل كابو مرة يكورم إن مساجد كده دتك لو ركبوا رواية ده لو ركبوا كبعض كلجوا حضر داخل المسجد معاذ بن جبل أبا عبد الرحمن الله رأى لك النقضي في عام طاعون عمواس وطاعون تقريبا تضبعت كن بلغوا قياس ذلك كل انت طاعون كاس وحنون جرك دوشة كسر بحياة لأنه غف قول من أيام خلاص أفكشن حنون كاسي أياكو جوجا فلسطين بكون داعي مركا وأبا عبيدة كل انتي معاذ بن جبل باكل انتي صحابة رسولك الرجل أقو قيمة بالنابة حنون كل انتي ولكن معاذ بن جبل الله رأى لك النقضي منبرك يسوق دول سارا حنون كاسر سنين كيسي عبد الرحمن بو هياي وسكرادا منبرك وصوف ولو خطبة الجمعة أيو جيدي وحو يري ألا إنها رحمة ربكم ودعوة نبيكم وقبضة الصالحين من قبلكم اللهم اجعل إله يوم هذا المعنى سوها ألا انتبهوا براروك بو يري حنون كان طاعون كان إن لسو درسي إنها ليلي وأن حريص إلهي حقي سكاتم يدي وأن دعاء النبي عليه الصلاة والسلام والنبي محمد عليه الصلاة والسلام وحوج على إن صحابتي سؤال بيدا كيما دان يكو وذا الشهداء وفق طاعون كل انتنا وشهيد وإيام وقبضة الصالحين من قبلكم داتك وناكسنا إنقوه الرئينا ماركو إلهي الدوية كقبنا يو حنون كاسا إلهي كو قادي جري قعما انتو كورو تاقيبوا إله آل معاذ رير كيغنا إله حنون كاسي وانا حريسي رير كيغنا إله حنون كا وحكسو قلبوا لأن مركاسو كبحي خطبة ديبو كبحي قريقي سيبو تقي إنا قيسي عبد الرحمن وحو تقي مركز سنكراتك كسو بحي خلاص وضدك هراك فرديان مركاسو معاذ بن جبل باهلو كو يري يركي باهل أبيه عبد الرحمن باهلو يري يا أبتي الحق من ربك فلا تكونن من الممترين أبها يجي وناكسنايا معانا يو أجشو يدي مشهدوا حق ربك أبي كتما دا وقفل بأدوية وكلمنا ياي فلا تكونن من الممترين كو حق إلهي كشك سنادقو حنقوم بوكيدي مركب معاذ بن جبل للما كدادته وحيري سقنا ستجدني إن شاء الله من الصابرين أما أنا واحد هلي دونتا إنا كم دحي كوا صابرين تأتكست إنا كم دحي بدهلي دونتا بوكيدي لأن إنا كيسي مركب نفتو كدعضي السقي ما كل حاجة حدا كل انت ما عبصونا يعني كم بقى يعني إلهي غيرك يوم الرب بني إسرائيل وعابدها وعبادة بدنا أيام ناق حن أو ناقها جرك وقضاء أيام ماشي وجوه بنان كي بيوصل بحدا روتي مده وكليجي سجى كليجي أي آية كليجي مرجع سيهور فريسته بالله سي والله سكور نكتة وتر كاله حمان هالسماينه تاسو إيجا صلاة بوسك جلا وكبحها حاجة مرودوس وجسده ويهور فريدا كاله وحنا سماينه وحولي لا يدوا بروح بدنتها بل يركادي يرسو قبل هذا بروح بدنه في عمتها ضب وشتي مركها ضبكي مركو شتي بالليل فرتي ساسو ضبكي قليه ساسو ضبكي وقليه فرتي دمع فرتا صار دلاش الى halka صار dhamaat tan kale qaado tan kale قليه isagii iska daay iyadii ba xanuunsatay balay oo jirkiisa dab ku gubay oo dabkii ku dhamaanaysa ka wala farti iyadii waa soo boodo halka bay qabatay ku tiri waa ku daayo waa ka tagay hasgubina ka joog bay ku tiri wuxuu yiri naftayda ayaa ku yar damacday damac baa igalay damac baa iga ka galay naftaydii baa tusayoon lahaa hadda dabka adduunka aad u adkaysan kartid ka aakhirana laga yaabo inaad u adkaysatid bal ii kaadibaan naftaan eegayay buu markaas ee waruntaas naar loo adkaysan maayo oo iska socdo عمر بن الخطاب رضي الله عنه وحجك الصعدة أيا وحي أركنين مركا آدو سو سعودو
faraska aad u soo eryanaya marka Umar ibn Khattab baa eego wuxuu yiri ninkaasi kulay anaku noo socday joogsada buu uu joojiyay Umar ciidankii ninkii oo aad u daalan oo aad u naxsan baa marka Umar soo gaaray Umar hortiisu ku dhacay Umar baa marka ku yiri manin cadow eryanayaan oo cabsoonaya ayaa tahay oo ku magan gelinaa mise nin dayn lagu leeyahay oo daynkii bixin kari waayay oo u baahan in la caawiyo ayaa tahay mise nin naf bini aadana soo gooyay oo xaq darro ku soo dilay baa tahay markaasuu intaa midna ma yihi buu yidhi waxaan ka imid buu yidhi Basra ayaan ka imid Basra waa magaalo ku taal Ciraaq Aba Musa al-Ash'ari baa halkaa amiir nooga ahaa haye halkaas anoo joogu dambi iga dhacay oo dambiga ka dhacay muxuu yahay khamri baan cabay buu yidhi لأن أبا موسى الأشعري بقى انتو قبتي بو إيغا جري بو حدكو إمريي هاي تمهينا او إيغا حيري هاي فرسنا انتو إيغو قادبو مقالة دي بصر إدحمر يو حويري نكا هلا عننا او هلا فريسننا او هلا صاحبنا او كدير هذا بو وجهي يجيب يجي مدوبي بو مرقا نفتيدي صدح مد بيغو شيكيسينا سميو إما إن أبا موسى الأشعري إنتون قادوا أن قرتك قويو إما إن قالوا إنتون إسكبيرو وحي عبيان أن لعب وحي عنيان أن لعنو يكن أن كم النقضو إما إن أدقى كوي ما دو دقى قبت الأمير كمؤمنين تعال مركا عمر بن الخطاب يايد رضي الله عنه إن أديتي مدي إلهي بكوا فجيبوا لي إن قالوا أوتكتها يلين إن أبا موسى الأشعري سجن إنتود الأردو متأدي شانا هيلين مرة دانيك يسوق ديبو يراني ورانت هذا حتى شقك قبل يا بروش وقبل ورقد بوقري ورقد نكر عمر ومديبين السجيب ورقد وديب السجيب كله أمير المؤمنين عمر اكتسان كسعوداء وكسو سلام عليه عاد كنت هذا حداد أمير كاغي أنا هاي ورقد يكون قرنت هاي وحق أن كقوله أبا موسى الأشعري وقدرين يسد ورقد نكا وكو كان دغيسو قابل بسو أمري وصار نقد نكي عمر ولي نكي مسيدين فرس بوسي لعب بوسي ضرب بوسي كلكم مدة ولي بن أوهيي أيود هذا بايبك سعوتك بصرة يوم مركا وقيم أبا موسى الأشعري أو خطبة دينيا مركز أمير كي المؤمنين عمر باي صادري عجيب مستاقي وكسو سلامي ورقد أنا ويسو دي بآخر سبو كيدي ورقد دي بآخر ستي نكا فرس كاكا صار مقال دي أدلا دحمر تمرك ورا لا دحمر عاد كتر على لا فريستا لا عنتايا لا صاحبة وولالكين وتوبت كاني توبت وعدونك إلهي بكذا حيسا وحي هوران هذا اللي قد عودنا وكان نقضي ولالكين ما ركتاني عافية أنا ونعافية دي أبا موسى الأشعري رضي الله عنه سيدي أمير كيسو وكو أمري بويا لي هل كنتو نيكي وقيم دون مدى حكردون كذي فرس كيسيبو صاري مقالة دي وسيدا وصو دحمري وولالكين وتوبت كاني عمر بن الخطاب بوتغي عمر بن فرينتا انوغا سو قاداي ولكن لا عنتيا ولا فديستا ولا صاحبه ولا شيكيستا ولا نولادا واتا دنيمدو قول مالين ميل كو قيليس ايان انكو جماعان جولد با كو قادني السلام عليكم وعليكم السلام بدبارس انا لا هدنا وانا مسلم marka waan dhageystay sheekhow hana la hadlin xabaha noo sheegin ilaaha xaqiisa noogu yeedhayso annaka waxba nama sii buuri hadalka ka warrama ayuu wax siiye reer galbeedku ilaahay wax siiye dadka cad cad waxba annaka ilaahay nama sii buuri sheekh dadkaas wax la siiye markaasaan ku yidhi ma waxaad raadinaysaa maxkamad markaa ilaahay aad soo saarto soo saar ma hadda
إلهي مرة بينو الدعوة يسوما كوي كلام مركا إلا دتك اسكمد ما اسكمد جيران إنه بخير كأصوب قضاء ورا واحد يقول أدونا قاموس أنا كان الله أنا كان رجسني خير كه مركاسا يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا جماعاتكم مركات سعوتة ومضى دح سعوته واحد نقول نسا طبيب بسألك دخترك وفضل بماشي حنون سوية قانا داودكم مناسب كان وقرا إلهي وحنا سو دحمريي هذا الكوي كلا اسكدا يسقي وكو دووبي waxa looga bilaabay nicamta ilaahay bini aadankan jirkooga uu ku abuuray wa fi anfusikum afala tubsirun adba marka loogu xeel dheeraaday aragi yaa nasi allah maqalka yaa nasi allah halaadkan ilaahay kugu rakeeyo balaag ishan oo kaliya hadii laga yiraahdo waxa wadanka lacagta loo dhaba kaliya lagu siinay ilaah laga saaro ma yeli labada indhoodna waxa adduunka yaa loo dhan maqalki kadalika ishu halka maqalku uu gala ma gali karta iyadu sanku booska uu gala maqalku ma gali karo cunto kaliya qofku cunaya ka soo qaad halka baa la dhigo cuntadii isha marka horeysa ba eegaysa ishu maxay sheegaysaa haddii cuntada daqsadul socda ka warramo daqsadul yaallo ama baranbara dul fadhido isha sheegaysa gacantu ma sheegayso isha sheegayso waxa ka qaadade waa cuntada naga qaad طيب cuntadii markii aragtay ishii way fiican tahay gacantu galiye ka soo qaad gacantu waxay sheegaysaa cuntadani ma kulayl ba mise waa dirimaad mise waa qabow gacanta sheegaysa haddii cuntadani afka ay gubi lahayd gubayso gacanta markiiba sheegaysa wuxuu leeyahay qofku waa kulayl cuntadu yar qaboojiya cuntadii waa normal kulaylna maaha qabowna maaha waa meel dhaxaad gacantii way soo qaaday halka marka cuntadu ay marayso yaa sheegay haddana sanku wuxuu sheegayaa cuntadani urti buu sheegayaa may udgoon tahay mise way bedelantay oo carfigeygii way ka tagay meesha hadday uraysa ka waran afka loo dhiibaya marka afka waxa qaadanaya shaqadiisii carabku wuxuu dhadhaminayaa ma qaraar ba ma macaan ba ma dhanaan ba bal xubin kastoo jirka bini aadamka qiimaha ay leedahay yaa ku siiyey gudaha halka cuntadu markay gaadho haddana warshad kale halkan ku rakiban oo ilaahay uu ku rakibay oo waxaad halka mariso dhan kala saaraysa waxa ajiiba magnad ba ilaahay carabkeena uu ka dhigay magnad abuu qabtaa tin hal tin oo tima ah ma gaadho lagu leeyahay caloosha bini aadamka carabka soo tuura markiiba carabka waxa uu sheegayaa biyo intee lag ba carabka ku jira جماعة بري وحي أركانين عادة شن لتر لا يوسيتا ماركو ير جوجب أو كبدا ماركو ير جوجب أو كبدا شن لتر ولا ويدي محاكو هلا سوى حجران وعرب كاي قلل بيودي عرب كاي مادة قن بيها سمينة يسين مال بيودي هذا شن تال لتر بيها قاعد تكون سدني وايو هنقولي جاي يجي وندمنا يا بيودي إنا كنا عمد ما قدرنا مالنا نعمة مقالك أيا يقانا قفك مقالك كم مقايا هيبا يقانا نعمة أرق أيا يقانا قفك أرق كم مقايا هيبا يقانا نعمة هذلك أيا يقانا قفك هذلك كم مقايا هيبا يقانا نعمة هردد أيا يقانا قفك هبينك أنا جيفان با يقانا نعمة أوبتك أيا يقانا نكبل أوبتك يقانا من يقدر هذه النعمة دنا أسلوب عين كاسة مركا رجي مجلس كجات كقيلة يقول لها الله يو نكي وانو فرصة نكي ماذا حصل أو الروحة بركان هذا الكود ده مينين سكجت تجني أيوة إن قد بها الله شيخو هذا الكهدر عنكو هلا شيطان بايجا كان يسود دعية يقولي شيطان با نحن ما خير بكجرة فترة دي إيمانك قلبي سكجرته markuu macsiyo ku dhaco qofka muuminka marka dambe uu ka calaalaya limaada lana fitrada islaamnimada qalbigiisa ku jirto qofkan marka lagama quusto sheekh culimadeena kamida ayaa maalin mawduuc ajiib ka hadlay wuxuu yiri nin gaal oo qoraaya
يا بوك بقريه علمه سيبا مشغولية وحودا مع علمها أنه نسوي ناس كمشغولية خريطة عالمكم كقرن ما بود فهم خريطة صوما يسوق على جحجحي كلا دادي وحول أبا خريطة دا سيدي كسر علي واحد وتان كسينه والمير اسمه له وسكون كاني دونا markii intuu qolkan la galay ilmiyeer asku keenay oo soo koolay kool buu soo mariyay scotch markiiba uu keenay abihi wuxuu mooyada baad ula tagto ku sheegtay may ana sameey ma walaasha baad ula tagtay iyada jaamacada dhigato taqaanay wadanadu isku xigaan oo isku keentay may aba ana sameey iyo sidaad u garatay sheeg waxaan ugu tala galay hayd buu yiri saacadan dhan inaad igaga mashquusho anigu intaan wax qorayna ma wax akhrinayo وعد حقا بعد ذوق أكتي عالمك كو ما بك عالمك كو صورية حاجة كلاس يجيت كقف بني آدم أكو صور نبودي ده قف كيوم بنسكو جي بود قعنتي لقتي حقا صوب هذا حاجة مركز صحيح نقطتين سكون جي حاجة دمنا وحين نقنسا صح نكي قرابها وحقرايا بوق دمبك اللي في بالي وحيري عالمك إن لها جي وحك أو ليسن إن بني آدم كورت الله حجاجي وهذا بني آدم كو حجاجان عالم كنا مركب بني آدم كم حجاجي مركب بني آدم كدينه بدست مركب ذلك إن لدسوا وحنو قبّه بدنا هاي ذاتك إن لدسوا وأنا ماشي نبي محمد وكبل أبي عليه الصلاة والسلام والله ذاتك هذا يدني ما ده نوصل نقطة نولش يهرب بديها ما نكون ولانا إنك هذا النما في عنها سنة ما دوغو سرينه وقادا خطبة منبر كيسو النبي قلت أقام بني صوغ إن الرب بادية يا رسول الله مركب النبي خطبة دي جوجيه ودقيستي روب لعام باجرتا حوله ويدم مادين يا رسول الله النبي مباركة وإلهي بركة يباتي قعما كورو قادو نو دعي مركب النبي قعما كورو قادو يا الله اللهم أغثنا اللهم أغثنا نكيو هالكي تاجن بإله الرب كسيداي جمعة كجمعة تضوام مع الماضي يسيدات هبين مربك كلا بوي واي إسلام نكي بعد جمعة دي دم النبي قام بركة تاجن هالكي سو تاجي ويا رسول الله حوله هو دم معدن هذا ومحد دم يي ربك بعد دم يي بيجي داتك فرقاب النبي اللهم حوالينا ولا علينا إله هريرة هيجا إله هناك نجا كرقات برسولك مركب الرب هو استاج وماذا وحو نبي وبري دباتك كستو الله سود رستا كان دباتك حلين كراواكما الله رب العالمين وياه ولا تاجر ولا وزير ولا دولة ولا هيئة مي قاضي الحاجات وإلهي كاشف الكربات وإلهي كربات إن حيستك قاضي كرا وإلهي حاجاتك مرادك عن لنا كأنه قومين كرا وإلهي معلم النبي والصحابة كيري ويسوس جهاد بكجرين مركبوا النبي كيري بلالو ويردى لنا هاي هل كنا وانصيحنا وكنا سنة نعاوي صلاة الصبحين ندافن نوكع بكوري بلالنا هرددي بلتكتي رضي الله عنه أدعادي وهالكا جوكتو النبي كعي صلى الله عليه وسلم بلال هردنا والله كعي النبي كعي بلال محاكو هلي يا رسول الله نفتي إني نجا قادر لا تجي أيا تيجينا لا تجي بوكي مرقابو النبي كوري ويتو كذين مرقاسون ماشن ومال غفلة ذي إن نجا كعي وهالكا عيدا كهالكا ورا بوكي هالكا وجورا مال صلاة كليا يكون نافتي حدو النبي يقول عيدا كو هكذا جربتو هكذا جورو مال بقول صلاة نقول نافتك ورا مجوكتان كيجا مالك ورا ما بدك مسلم دول مسلمين تيك تجان دول قال وسعد وجورينا كورا ما هل صلاة مال النبي جي الصحابة دي سكون نافتي يكو خارجينا وإلهي الدين كيس الصعدة أدو نبي محمد ويري ماشي غفلت بين نقول على شيء إيه هم بدله ماشي توصل على نقول نافتك ورا ما مركز سوينا خير بحنا صوما وين إلهي درته بحنا مركز أبا هريرة رضي الله عنه قاجد رادة بمسجد النبي كمركز صلاة الله قدر هرو أيو يريد النبي كو كبح أيو كود عجري نيجا رميجا مقالة المدينة كو عصب أيا
intuu isku dultaaga oran jiray warmaad waalan tahay meesha ka kax markaaba oran jiray ma waali Abu Hurayra wuxuu leeyahay waali ma waxaan la jiifay gaajaan la jiifaa buu yiri Umar baa ii yimiday markaas Umar ku yiri aayada quraanka halka aayada quraanka halkay ku soo degtay Umarow markaas Abu Hurayra wuxuu yiri marka Umar aayada quraanka aan weydiinayay garasho la'aaniga ma yahayn waxa iga ahayd Umar wajigaaga intuu soo fiiriyo gaajada wajigaaga ku taala intuu eego ha garto oo ha ku yiraahdo Abu Hurayra gaaja ku haysay kaale ila soo xiraado ila soo cashay imuu fahmin aayadii buu iga jawaabay buu yiri halka ku soo degtay hadana Abu Bakar baa yimid Abu Bakar wadna bal aayada iga jawaab halkay ku soo degtay Abu Bakarna ima garano ima fahmin aayadii buu iga jawaabay buu yiri wa Abu Hurayra baahi baa haysa saddex maalmoodii saddex habeen afkiisa cunto ma gelin haddana Abi Bakar iyo Umar inuu baahi u sheegtay ayuu ka qarsanaya inagana abaar oonan iman baa dadku abaar sii sheegaan waxay noqotay gaajadii wax lagu baayac mushtaray moogta soo ma haynta soo ma xanuunka waaga dhawata la buunbuuninaya adduunka la sheegay mashruuc قالوا إنك بنقوم صعود بحنون كاس نقوم صعود عقوبة ملك لكل صعوتا هذا ضيع لتكور هذا هل جيت بريه وردتك ورنجرين بلايا مركي مقران من بلايا كود عبي أيا لقى البري جرال ورنجري بلايا بيد أي مكان ما أنت محل ليه بلايا صوب بيد حنون كأنك أنت أبو نجا دعي أنت أبا كبوكستي أنت أبا قدمتي محد كشيء مؤمنك بلايا ما شيء مؤمنك نعمة إلهي بكشيكيا وأما بنعمة ربك فحدث نعمة لك الشيكيا بلايا لك ما شيكيا بلايا ولا قرصدا حداد بلايا كقول عضي أتكشيكي سيد وحي كدي أنت هاي نين إلهي كعبا هيولي إلهي بوحى ودباتي وسمية يا قبطة يا إلهي كعبا ورما هيك بإلهي كعبا بالشيك مؤمنك بلايا ما شيكو أبا هريرة جاجدي سي عمر ومشيقين أبي بكر ومشيقين وقرصنا أيي لكن وحو بصير وفرسمله أي وجه أقوم بالكل كي إيغان هكاد دريمان وهكو يرادان أبا هريرة مركو رضا على الصفا هذا هيدا ومقالة مدينة قراني قرابكم اللهين واد قاجوتي إن مري هكو يرادان يكين ما يفهمين ولكن النبي محمد عليه الصلاة والسلام مركو النبي يقول يقصوا بحيبا هل كاسو النبي يقول كفهمي هل كابو كفهم يا أبا هريرة قال عاواني إلى سوء عشاء أبو كيدي قال إلى سوء عشاء كوب عانو النبي قوي مدرير كيسي كوب عانا عايا الله كوب عانا كويا لنبي الله يا أبا هريرة مسكيت يكون نقو أهل الصفية ودن النقو غير عاو عانا هنا العباني وكوب عانا أبا هريرة النبي محمد هذا الكيس ما أوران كرو لكن يبدأ كي يريبوا يريكوب كان عاناها أدقوم وكوكو في عناية ميها اللقول دي بقى حكو عبادة ستة الله بيانه هل الصفون والرقات قرن يسيدي مسكيت كده قنايو أياك اللفت لوكم مع الميد الوحبعون ده كل النبي كل كويرو أي نادان فريستان أدو كورنا أبا هريرة عاناها قادو سيسي كوه الرئيال لصيه همين لكن النبي محمد هذا الكيس ما يورانين ويري أقل مركي فريستين سدي وكب ملايين يمشى ودعدي يا أبا هريرة أبو النبي وركوبك عنها قاد نكا وجوه الرجال أديب حكنا قادم بور إلا يسوي كوسع عليه مويانه وكوب عنها رجل الله يرنا ورجيه هو أهل الصفة كي الرياع مركز أديب وأنا وعنه هالكوجي جو كي كلام أديب هالكوجي كي سقاشن تضباطن نسكده مركز النبي يقول يا أبا هريرة يا رئيسك يا رسول الله أديك يعني قاعد فليسو أدو عبد وأن عبد كل علي حدا وأن عبد كل علي إلى أن إراد إله حق كل صوص صاربان كل دارته أنها ملء على شيء أي كم مرانو بنان هدي تليقوم هذه من يريبي لأن مركز أنا هم بدي النبي قاتي هم بدي النبي عليه الصلاة والسلام وحن كودا فقراء دودو باهي ويقبين لكن باهي دودو مشيقين باهي دودو إيمان كدبولاي
iimaanka daboolay wallahi waxaan u baahanahay maanta ummadda in iimaanka loo dhiso ummadda in ilaahay lagu xidho ummadda in aakhirada loo jeediyo ummadda in diintooda macaanka diintu ay leedahay loo sheego taan maanta u baahanahay waa taas ducaad ma noqonaa mise cubaad baan noqonaa bal kala doorta haweenaydii la odhan jiray maaragtaane ummulxakam bintu xaaris radia allaahu canha waa cikrimo zawjadiisii markuu nebigu calayhi salaatu wasalaam uu maka soo galay 4 nin ee uu nebigu yidhi haddaad aragtaan ayagoo kacbada haystana haddaynine dila ninkeeda ayaa ka mid ahaa cikrimo ibn abi jahl baa ka mid ahaa markuu maka uu nebigu soo galay cikrimo magaaladii maka uu ka baxsaday waxa uu tagay markaa ardulyaman yaman markaa isagoo u socda ayuu fuulay maaragtaane doontii markuu fuulay baddii baa kacday markaasaa ninkii doonta waday baa ku yidhi akhlisuu ikhlaas la yimaado akhlisuu iimaanka iyo tawxiidka ilaahay u badhaxtira buu ku yidhi markaa cikrima ayaa yidhi anaku aaliha ayaan caabudanoo mushrikiin baan nahee waa maxay ikhlaaska inaadna leedihiin waxa weeyaan baa lagu yidhi maanta waxa keliya ku badbaadin kara inaad tidhaahdaa laa ilaaha ila allah waidaa rakibuu fi lfulk dacwuu allaha mukhlisiina lahu ddiin falamaa najaahum ila albar idaa hum yushrikuun gaalada mushrikiinta ilaahay baa nooga warramay marka ay maaragtaane mashaakil ay la kulmaan badaha markay marayaan iimaanka iyo baryada ilaahay bay u badhaxtiraan laakiin berriga markay yimaadaane nabadqab isku arkaanna waaba iyakoo ilaahay u shariik yeelaya waa mushrikiin alcarab sidaasay ahaayeen marka barwaaqadana asnaamtooday caabudayeen markay dhibaata la soo daristana ilaahay bay baryayeen u yeedhanayeen markaasuu ku yidhi maa harabtu ilaa min haada wax kalaba anigu kamaan soo firxine kelmaddaa baan ka soo baxsaday buu yidhi kelmaddaa buu nebi maxamed noola yimiday calayhi salaatu wasalaam kelmaddaasan anigu aan ka soo firxaye ma kelmaddii baa halkan ay hor taalla buu ku yidhi deedna haweenaydaasi intay nebiga u tegtay ayay ku tiri cikrima nebi allow aduu kaa baxsadee anaa ka daba tegaye ma soo qabtaayo ma u yeedhaa markaa buu nebigu ka yidhi haa u yeedho weliba waxaad u sheegtaa in ninkaasi la nabadgeliyo u sheeg deedna cikrimo radia allaahu canhu isagoo markaa weli aanan islaaminoo yaman jooga ayay halkaa ugu timiday ku tidhi muxamed calayhi salaatu wasalaam ayaan kaaga socdaayoo kuu yeedhaye ina mari markaasay yuu ku yidhi ma anigoo cikrimo ibnu abi jahala ood og tahay cadaawadda nebi maxamed uu ii hayo ayaad leedahay muxamed baa kuu yeedhaaya markaasay ku tidhi haa anaa kuu soo qaaday ballan baan ka soo qaaday nebiga nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam wa abaru nnaas wa awsalu nnaas wa axlami nnaas cizuhu cizuka wa sharafuhu sharafuka bay ku tidhi ka aan ka socdaa agtiisa waxa weeyaan waa kii dadka ugu dulqaadka badnaa waa kii dadka ugu baarisanaa waa kii dadka ugu xidhiidhinta fiicnaa weliba waxaad ogaataa muxamed calayhi salaatu wasalaam dadka ugu dhowbaad adigu aad ka mid tahay guusha maxamed uu gaadhana adna waad la leedahay sharafta nebi maxamed maanta uu haystana adiguna waad la leedahay bay ku tidhi way soo kaxaysay way soo sasabtay bal ka warrama gabadha fikriga ka warrama waa ninkeedii way u quuri weyday ninkaa gaalnimo inuu ku dhinto waxay rabtaa ninkeedaas maadaama uu jacaylkeedii uu ahaa inay ilaahay raxmaddiisa ku hoos hubsato ayay doonaysaa masaafada intaa la eg weliba ay u soo gashay oo nafteediina maaragtaane dariiqa intay ku soo jirtay khatar bay nafteedii u gashay inay ku dhib mudato maaragtaane uu soo raacay magaaladii madiina markuu maka uu soo gaadhay ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam reer maka iyo saxaabadiisii wuxuu ku yidhi cikrima inoo iman doono cikrima ibnu abi jahl baa soo socdee aabbihii ha ku caayina buu nebigu yidhi waayo cayda aabbihii hortiisa aad ku caydaan aad ka dhintayna gaadhi mayso wax yeeli mayso laakiin ka nool bay naga dhibaysaaye cikrimo soo dhoweeye buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam haweenaydaasi waxay sabab u noqotay cikrima radia allaahu canhu inuu ilaahay caza wajalla uu aamino uu rasuulkiisa gacanta u saaro uu noqdo saxaabi jaliila oo diinta difaaceega dadaalkeega meel alliya meeshii loo diro u diyaara ayay keentay haweenkana waxaan leenahay ininkuna dowrkiinna diinta ka qaata oo waxaad u noolaanaynaa waa diin weeyaan waxaan ka shaqaynaynaa waa diin weeyaan waxaan isku kaalmaysanaynaa waa diin weeyaan waalmu'minuuna waalmu'minaat bacduhum awliyaa'u bacd ya'muruuna bilmacruuf wayanhawna can ilmunkar wayuqiimuuna alsalaax wayuutuuna alzakaa
أولئك ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه زمن كيسي أي أبار ما كان على مقالة مدينة مركز حوله ما دماده مركز عمر dadkii xooluhu ka dhamaadeen baa magaaladii Madiina ku soo qaxay Umar ibn Khattab Allah raali ka noqday dadkii muslimiintii ayuu la hadlay wuxuu ku dhirigeliyay dadka abaaruhu xoolaha ka dhameeyeen in la caawiyo oo la soo dhaweeyo wax la siiyo reer Madiina nin walba wuxuu aqalka ku haystay buu bixiyay abaartii way daba dheeraato dadkii way ka kici weyday abaartii ilaa markii dambe maalin walba waxa la yiri dad 700 qof ku dhow maalin walba dhimanayso la aasayay abaartii xanuuna ka dhashay markaaba Umar ibn Khattab hadana warqad buu qoray Amr ibn Aas oo Masar jooga Masar waa dhulkii beeraha lahaa ee wabiyaalka lahaa ee khayraadka badnaa markaaba Amr ibn Aas Umar waa amiirkii guud weeyaan Amr ibn Aasna waa waali weeyaan oo wilaayada Masar buu ka yahay maaragtaan amiir wuxuu u soo dirbuu dadkan macaawina reer Madiina abaar baa la soo daristay waxa uu soo diray baa la yiri awr maaragtaan laga soo buuxiyo bur iyo daqiiq iyo maaragtaan saliid oo madaxeeguna Madiina joogo inteeda dambana ay Masar ka soo baxayso safarka intuu leeka safar dheer weeyaan taas ku daba haysata hadana abaartii way daba dheeraatay way qaadmi way fiidmi weydi nin Arabi iyo reer baadiya ayaa habeenada kamida nabiga agtiisa kaleey salaatu wasalaam ayuu seexday rawdadii nabiga ayuu seexdo markaa uu nabiga manaam ku arkay markaa buu yaa rasuulallah abaartaas aan ugu dhacday xoolihii way dhamaadeen dadkiina hadda way dhimanayaan markaa buu nabigu ku yiri Umar ibn Khattab u tago waxaad ku tiraahdaa rasuulka Ilaahay baa ku soo salaamaya ku dhe laakiin Umar uu sida ku mooday ma noqon ka dhabu nabigu ku yiri Umar uu sida ka filayay ma noqon uu kacay ninkii manaamkii buu arkay riyadii Umar u sheegay Umar ibn Khattab muslimiinta oo dhan buu u yeedhay ya saxaabada rasuulka ragii waaweynaa ee noolaa wuxuu yiri rasuulka Ilaahay baa fariinta ii soo diray ma dariiqii baa ka wacday walaalahay oo toosiya hawaad weecatay baa lagu yiri waxaad ku weecatay mar ali markay abaari ay nabiga zamankiisana la soo daristo nabigu isaga ducayn jiray kaleey salaatu wasalaam istaciinu bis-sabri taasu nabigu bar ummadiisa dadka muslimiinta hadday dhibaato la soo daristo ay adkaystaan ee sabraan ilaahayna baahidooda u sheegtaan ilaahay Allah yiraahdaa dadna Umar ibn Khattab isla markiiba wuxuu sooma waa la soomay maalintii dambe waxa loo baxay roobdoon halkii gegadii bankii lagu tukanayay salaada maaratan salaatul istisqa halkii iyo ko taagan ayaa ilaahay roobkii sii daayay ilaa daruurta dhexdeeda fadka laga dhex maqlo la yiraahdo ataaka al-ghawth ya aba Hafs ya Umar Hafsa wa inantiisi al-mu'minin radiyallahu anha al-mu'minin Hafsa abaheedu gargaarkii aad dalbatay gurmadkii ilaahay waa ku siiyay bashaaraysa baa lagu yiri abaaraha xiriiriga faqriga colaada cabsida khilaafka uquubo weeyaan waxa maanta umada la soo daristo ku dhacday weeyaan uquubadaasi ma faydmayso illa ilaahay oo loo noqdo mooyaan la taqa'u al-musibatu illa bi dhanbin wala turfa'u illa bit-tawba bi culimadu yiraahdaan balaaya ummad lama soo daristo إلا بلايدا لا سو درستay umada dambi la galay balaayadaasi ay ku timiday ummadna ilaahay balaayay masiiba haysata kama qaado kama rafaco illa toobad mooyaan marka ummadu ay toobad keento ayaa ilaahay tabaaraka wa taala ka qaada balaayada fa ilaahay hanu soo noqon وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا آية مالنتي سو دغتي قال كي ويناي اللي رجل عقبة بن أبي معيط أي عزمت بو سميه مقالنا مكة دحديدا وأمرك النبي جينا عليه الصلاة والسلام إلهي وصو صاري دعوة إسلامكو أي هاي مارك تاني غريبة هاي دعوة إسلامكو غريبة هاي دويرين مركا بريقانا مقالنا مكة شخصنا ugu sharaf badan magaalada Makka ee dadkoodan ugu jecel yihiin ee la rumeeyo hadalkiisa ee amaanada lagu aamino wuxuu ahaa nabigeena Muhammad alayhi salatu wasalaam buu ahaa marka nin Qurayshiya oo reer Makka markuu cazumad uu sameeyo shakhsiga ugu horeeyo cazumada uu u sheegi jiray wuxuu ahaa nabigeena Muhammad alayhi salatu wasalaam marka ninka gaalka Uqbata ibn Abi Mu'ayth la oran jiray Uqbata ibn Abi Mu'ayth wuxuu sameeyay marka maadaama cazumad uu leeyahay shakhsiga ugu horeeyo ka bilaabay cazumada wuxuu noqday
nabigeenu markaa u bandhigo wuxuu yihi maxamedow cazumad baan leeyahay igala soo qayb gal buu yidhi markaa buu nabigu yihi marxaba waa markii u horeysay la yidhi nabiga lagu yidhi fasdac bima tu'mar wa acrid can ilmushrikiin ay dacwadda islaamku magaalada maka qariib ay ku tahay qariib ee nin aliya ninkii islaamana la dhibayo la cadaabayo ayuu ninkani cazumad sameeyey ninkan gaalka ee mushrika waxaa cazumadiisii ugu horreysay u bandhigana waa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waayo nebigeenna wuxuu ahaa magaalada maka mujtamaca ku nool shaksiga ugu dabeecadda wanaagsan buu ahaa ugu run sheegsan buu ahaa ugu ammaano fiican buu ahaa saadiq almasduuq bay carabta odhan jireen run sheegihii la rumaysanayey buu ahaa moxamed alamiin bay odhan jireen moxamedkii ammaanada lahaa buu ahaa maadaamuu nebigu ahaa shaksiga ugu sharaf badan quraysh casumadda shaksi ugu horreeya loo sheegay waxa u noqday nebigeenna moxamed calayhi salaatu wasalaam deedna markaa buu nebigu yimid oo dadkii weliba ugu soo horreeyeyba inaku maanta waxaa laga yaabaa ballanta ma ilaalino ballanta ninka ilaaliyana waa muumin qofka ballanta baajiyana waa calaamatu nifaaq baa ku jirta aayat lmunaafiqi halaath calaamaadka qofka munaafiqa lagu garta nebigu wuxuu uhi waa saddex markuu sheekayn been buu ku sheekeeyaa marka la ammaanana ammaanada u khaa'imaa markuu ballan qaadana ballanka uu ka baxaa buu rasuulku yidhi wa fii riwaayatin waidaa khaasama fajara hadduu doodayana buu nebigu yihi hee been iyo xaqdarru ku doodaa buu nebigu yihi qofkaas calaamaadkaasaa munaafiqiinta lagu yaqaanaa calaamaadka muuminka lagu yaqaanana waa cagsigeega hadduu ballan qaado muuminku ballanta uu ilaaliyaa hadduu sheekayna runun buu ku sheekeeyaa haddii ammaano loo dhiibtayna ammaanada loo dhiibtay sidii loogu dhiibtay baa loogu yimaada qofka muuminka markaa nebigeennu calayhi salaatu wasalaam isagoo ilaalinaya maaragtaane ballanka uu ninkaa la galay isagoo ilaalinaya dad hortii buu nebigu yimid meeshii laga qadaynayey markaasaa mujrimiintii qureysheedna way gadaashiisay ka yimaadeen abaa jahal baa yimiday cuq baa yimiday shay baa yimiday rabiicaa yimiday waliid binu muqiiraa yimiday gaaladii waaweyneyd oo dhan baa timiday mar alii markay arkeen majliska nebigeenoo fadhiya calayhi salaatu wasalaam ayay ninkii gaalka ay casuumadda fidiyey ku yidhaahdeen war ma annakiyo muxamed baad meel iskugu kaaya keentay bay ku yidhahdeen miyaanad ka warqabin aniga moxamed waxa naga dhexeeya waan ka warqabaaye laakiin moxamed nin la dhaafi kara maaha waayo magaalada maka waa shaksiga ugu sharaf badan weeyaan ee ugu ammaano fiican weeyaan ee ugu runsheegnimo badan weeyaan waa cajiib akhlaaqdaada wanaaggeega inuu qofku muslima uu kuu qiro way fiican tahay laakiin waxaa ka sii cajo badan qof aad cadowgaaga ah inuu akhlaaq wanaaggaaga uu kuu qiro taasaa ka sii cajo badan markaasay kaceen nimankii qureysheed iyakoo cadhoonaya yidhahdeen war waa ka kacaynaa meesha annagu waayo imaa muxamed imaa annakana dooro imaa maxamed ood meesha ka saartaa weliba seed uga saaraysaa waad caayi hortayada ayaad ku caayi qandhuufna waad ku tufi weliba waad bahdili waxaad odhanaysaa anuu kuuma yeeranay meesha ii dhaafaad odhanaysaa imaa annakaa dareerayna markaasuu yidhi war ininku ha iga dareerinaya isagaa fudude isagaa saariya ii kaadiyey buui sidii ay ka dalbeen buu nebiga hortooda ku sameeyey gaalkaas bal ka waran bahdilaadda intaa leg nebiga loo geystay maxaa nebiga maalinkaas sidaa loogu bahdilayay ma taqaanaa waa sida aniga iyo adiga diinta islaamku noo soo gaari lahay darteed ayaa nebiga loogu dhibayey aniga iyo adiga dartaa iyo dartay ayaa nebiga loo ihaanaysanayey waayo markiisii hore intaan nebinimada la saarin sharaf iyo karaamuu iska lahaa laakiin maalintuu yidhi nebi baan ahoo rasuul baan ahay oo ilaahay baa caalamka ii soo diray oo dadka adduunyada ku nool baa risaaladda gaadhsiinayaa maalintuu nebigu yidhi ayaa wixii dad adduunyada jooga nebigeenna ka wada hor yimaadeen isagoo lilmadu ay ka daadanayso ayuu nebigu ka baxay aqalkii sala allahu calayhi wasalam laakiin qur'aankaa la socda nebiga qur'aankaa la socda waxyigaa ku soo degaya markaaba qalbigiisa ayaa laga biinayaa murugta la soo daristay qur'aankaa markiiba soo degay wa yowma yacaddu الظaalimu calىa yadayhi yaquulu yaa laytanii اtakhadtu maca الrasuuli sabiila yaa waylataa laytanii lam atakid fulana khaliila laqad adalanii can الdikri bacda id jaaءanii wakana الshayطaanu lilinsaani khaduula waqaala الrasuulu ya rab ina qowmi اtakhaduu hada الqur'aana mahjuura wakadalika jacalna likuli nabiyi
عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وكفى بربك هاديا ونصيرا واذكر با نبي قال له حس حسوسنو مالين با يمن دونت با نبي قال له يري ظالمكا adiga aqalkiisa ka soo saaray inuu adiga wax ku yeelay buu moodaya ظالمكا iyo daalimiinta ka dambaysa oo dhan maalin ba iman doonta ba ilaahay leeyahay farta ay dhaxda ka qaniini doonaan farta ay dhaxda ka qaniinaan bay oran doonaan ay ku calaacali doonaan way maxaan muhammad raaci waay dariiqadiis way maxaan nabi maxamed ugu dayan waayey way maalinkii ayaka doon iska saaro maan isaga la soo hadhaa maan hadalkiisa rumeeya maan diintiisa raaca maalin bay ku calaacali doonaan baa ilaahay yidhi kee ku kasta oo daalima nin taajiro maalqabeena habeenkii ma seexda ninkaasi wuxuu ku seexdaa kaniin laakiin waashmaankiisa albaabka u ilaaliya waashmaan baad tirahdaan soo maha security haariska bawaabka markuu iridda xidho ay baabuurtu soo wada gasho meesha yar albaabkaaba aqal looga sameeyey iska seexdaa waliba uu khuriyaa si fiican buu u seexdaa qurruf qarraf ninka maalqabeenka u wareega markaa habeenkii ma seexanayo dushaasaruu ku leeyahay aqal oo xataa ciyaalkiisa mid boqol buu u sameeyey isaguna xagga sare u aqal fiican ka dhistay wuxuu leeyahay shanqar ma maqlo laakiin ma seexda ninkaasi habeenkii imaa xabuub buu ku seexan imaa irbad buu ku seexan siduu habeenkii markaa u wareegayo ila waa nin maalqabeen oo xisaab buu ku jiraa moogta xoolihiisii buu ka fikirayaa kanuu haddana ka fikirayaa kanuu u shuuraynayaa kanuu eryayaa kanuu soo qorayaa halkaa buu xoolo ka yaalin telefoon buu ku hadlayaa telefoon baa u soo dhacaya waxbuu ka jawaabayaa su'aala la weydiinaya ma seexdo maskaxdii baa dhalaashay laakiin wuxuu arkaa waashmaankiisii oo iska hurdo iska khurinaya uu yaabay haddana habeen labaad buu dul yimid isagoo khurinaya khurruf qarruf ajiib dadka fuqarada waa ajiib moogta ilaahay uu qeybiyey nicmadda qoladan maal baa la siiyey laakiin raaxo ma haystaan qolo waxaad arkaysaa fuqara la yidhaahdo oo iminka xanuunka waaga dhaweetee koronaha ka soo qaad example waa mithaal gaban baan nin sheegi dadka ugu cabsida badnaa ayay haayeen lali sheega dadka gaaska yar haysta soomaa gaaska waa kuwa lacagta yar haysta kuwaasaa cabsi badan masaajidda kuwa ay ku tukadaan ilaa iminka afkii wada xidhan yihiin fuqarada masaakiinta ee muruqmaalka ee maalintii iska xamaaliinta la yidhaahdo wax korono ka baqaya maad aragteen iyaga car maad aragteen ma jirin waddankan berigaan aad u dhex maro xamar baan joognay maalmaha adduunku diyaaraduhu kala xidhmayeen markaasaa diyaaradihii had ku timaadeen way istaageen garoonkii xamarna wuu xidhan yahay jabuuti way xidhan tahay halkaa way xidhan tahay dhulkaan iska marnay dhulka markaan marayna dadka hayjadaha ku nool ee xoolo dhaqatada ama fuqarada masaakiinta waxa magaalada wareer iyo qayle iyo buuq dhul baa la xidhay maxay baa la xidhay ka taagan warkaa maba hayaanba haniga ninka maalqabeenka iyo ninka mansab maanta madax ahaayee meel fadhiyey labada ugu cabsi badan ee korona ka baqaysa waa labadaas fuqarada waxba kama baqaan mid faqiira yidhi maxaa korona waxaan cunaan laanahay buuhi waxaan cunaaba laanahay buuhi korona haddii alla arki laha waa man cuni lahayn buuhi mid muxuu ka baqi ilaahay uu qaybiyey moogtahay nicmadda kuwan maal baa la siiyey laakiin cabsi baa lagu riday qalbigo mar walba way baqaan kan waa faqiir ma baqayaba wuxuu le maxaa ka baqi iminka nin lacag yar wato oo meel suuqa dhex maraya uu cabsoon wuxuu le balo tuugtu ku dhac laakiin nin xalay aan cashaynoo maanta qadaynoo faqiira hadduu tuug dhex maraya muu cabsoonaya ma cabsooni muxuu leeyahay iyo kaaban baadhan buu leeyahay anigaa waxa cuna balaba ilaahay sidaasuu markaa bini aadamka ugu qaybiyey nicmadiisa lidaalika ninkan maalqabeenka habeenkii ma seexdo laakiin waashmaankiisu iska seexdaa uu fiirsaday uu fikray ninkii wuxuu yidhi malaha ninkan wuxuu la seexanaya waa faqriga anna waxaan la seexan lana waa ghinada soo maaha bal waan eegi isagu markaa ku jarrabaya waxaa la yidhi bishaarka wuxuu siin jiray maalan $100 bishii $300 buu uga dhigay bishii uu yeedhay maalintii lacagta la siinayay uu yimiday qaado buu kudho warqad buu ugu xidhay warqad buuqsadii buu ugu riday markuu kala furay waa $300 wuxuu yidhi lacagta waa ii qaldanteen may kuuma qaldamina waan kuu gartay iska qaado buu ka yidhi halkaa buu iska gashaday miskiinka uu farxay markaa
habeenkiiba markaa ninka maalqabeenku wuxuu eegayaa bal ninka inuu seexday ee kala caawa eeg oo dul maray awal 2 saac uu seexanay laakiin maanta 3 saac wali waa soo jeedaa ninkii uu fadhiyaa uu eega markaas uu soo jeedaa haddana 4 saac uu kor maray wuxuu arkaa ninkii oo xilligaas sii goglanayo sii seexanaya marka uu seexan waayo soo baarigtaa haddana wuxuu dul yimid meelaha 5 saac wuxuu arkaa ninkii oo go'a huwadayo laakiin hoosta ka dhaqdhaqaaqaya markaa haddana 6 saac uu soo maro wuxuu arkaa ninkii oo badhida u fadhiya markaasuu maxaa ku fadhiisiyay wax kale ima heline lacagtii aad ii biirisay ayaan ilaa imika ka yar fikirayaa islaanta maxaad ugu dartaa kan kale maxaad siisaa kan waa miskiina maxaad siisaa ciyaalka maxaad u iibisaa maxaad la hadhaa maxaad ku samaysaa waayahay wuxuu iska seexo hay habeenkii oo dhan ninkii ma seexan waagii indhaha casaaday ninkii waa washman ilaa habeenka inuu jiiftay haydu maalinkiina shaqeeye waagii markuu baryay ninkii maalqabeenkiiba u yimid ninkii indhuhu casas yihiin oo albaabka furayo xidhaya markaasuu yidhi sheef labadaadii $100 ee dheeraadka ahayd iga qaada buu ka yidhi waa tan maxaa dhacay xalay kama seexan buu yidhi cadaab baad ku jirtaan buu yidhi cadaab aniga waxaan haystaa buu yidhi intaa yaraad siiso $100 baa masaariiftaydoo dhan waa isku fadhidaa buu yidhi xalay labadaa $100 waan ka jiifan waayey buu yidhi ninkii maalqabeenkii markaa maxaa u baxay waxaan qofka bini aadanka wareerinaysa waa adduunyada weeyaan waa meesha culammadu ay yidhaahdaan war hadba intay adduunyadu inoo biirto hee walwali walbahaar biyo murug baa inagu biiraysa hadba inta iimaanka iyo diinta iyo taqwadu ay noo biirtana raaxa inoo biiraysa Cameroon bari annagoo ku baxsan magaalada Ngun ay yidhaahdaan Ngun ayaa la nagu yidhi masaajidka boqor baa imanaya maanta boqor haye marka waad salaamaysiin marka la salaamaya la nagu yidhi kabaha la saaraa waana la gurguurtaa waa ka dhagaysanay markaa horta ha yimaado masaajidkii markaan ku tukanay salaadii jimce ninkii waxaa la keenay fardo lagu ilaalinaya fardooley qaar lugaynayaan qaar farda wataan isagana baabuur marshandiisa lagu wadaa waa la keenay salaadii markii laga baxayna meel geed hoosteeda la fadhiisiyaayo dadka way soo gurguurtaan anagu waxna ma gurguurane aayar intoon iska lugayna baan salaamu calaykum saasaan u salaanay hadiyadna waan siinay markaa cimaamad iyo cadar iyo waxbaan siinay waxaan xasuustaa markaa ninkaasaa lanoo sheego lanagu yidhi 4 iyo 6 dumar uu leeyahay hayaal oo 6 kalku ka keen 4 la garay markaasaa la yidhi wamaa malakat aymaanukum baa waddanka ka shaqayso oo qaryadan miigeyga oo dhan dadka ku nool oo dhan waa addoomo yihiin addoomihiisi weeyaan 4 markaa sharcigu u ogolaayay 6 marka waxaan ka wadaa macnaha adduunka xataa al'aan dhul bay addoomo jiraan xataa Mauritania waa la sheegay marka barigaas addoomo iyo dad xor ah jirayay marka ninkii Bashar al-Xaafi waxa uu yimid markaa ninkan ayaa ilaahay u soo diray iridii aqalkiisu u istaagay deedna bawaabkii albaabka u taagnaa buu ku leeyahay ninkani ma xor baa mise waa addoon markaasuu ku yidhi maya waa xor isagaba addooma leh markaasuu madaxa sidaa u ruuxay bas waa fahmay buu yidhi ilaa waxa aqalkiisa rakhaska daanska loogu ciyaaraayo waa nin xor ah uu ka tegay isagii baa markaa dusha ka fiirsanayay hadalka uu lahaa ma maqlayn laakiin ilaahay baa qalbigiisa jilciyey uu soo daadegay ninkii washmaankii albaabka u joogay buu u yimiday aaway buu yidhi markaa maaragtana ninkii kula hadlaayey dee uu dhaqaaqo xaggaa buu qabtay muxuu kaa yidhi wuxuu igu yidhi ninkani ma xor baa mise waa addoon dee maxaad ku tidhi dee waxaan ku yidhi ninka aqalkan iskale waa nin xor ah dee muxuu kuugu jawaabay dee wuxuu igu jawaabay waa sababta aqalkiisa rag iyo dumarku ay ugu ciyaarayaan hadalkiiba markaa ninkii qob ku yidhi qalbigiisa wuxuu yidhi bal lastu xoran ana cabdun buu yidhi ma yihi buu yidhi xor ma yihi anu bal addoon ilaahay baan ahay buu yidhi u ka daba dhaqaaqay halkuu maray halkaabuu maro halkaabuu ka weecday u ka daba tegay raadkiisiibuu goray waxaa la yidhi cagaaguu gurigiisii kaga soo baxay kuma noqon ninkaasi dakhala almasjid fataaba tawbatan nasuuxa
وجلس في حلقات العلم وأصبح عالما زاهدا ربانيا يقتدى به إلى يوم القيامة. بشر الحافي بشر كي عقاقنا باللوغو مقعدري عقاق بقوري سكاكا صوبحي مساجد كو صوغلي توبة كاني توبة النصوحة علماء الله فريستو علمك كبرتي عالم زاهدة وإله علاقة له وإلى يوم القيامة علماء أي تقانو كتبت كقرا المقعيسو أي إلهي إنك كدقي وكلمة ذاك اللي يكون إصلاح لقى قريقا نسكلم حربة مسوا الضون إنك عندما أنت مجتمع عنا إيجا مسيدة حربة تين اللي يريد أن الله هاي مسوا حنون الله سيد اللي يريد الضوم إلهي باتين عبصودا يا كثير من الناس ما أنت وحي ونوليهن سواح ليد حربة واحد دون تين بكوه الله واحد دون تين بإيجا واحد دون تين بعنا واحد دون تين سمايا واحد دون تين داوضة ساد دون تين دركة وحدة ساد دون تين تماها أجرتها مسلم هداته هي مسلم معناه ما تفهمينه مسلم معناه وحكا دغنت هي المستسلم لأمر الله عز وجل وكي أمرك إلهي اسكو ديبه بك دغنت مسلم كي هوغان سمي halka hore war wanaagsana haday baahi qabato masjidka iimanayeen nabigeena calayhi salaatu wasalaam ayaa masaajidka soo galay abu umaama arkay nabiga masjidka dhex jeefa markaa buu yaa aba umaama saacadan masjidka ma dima jirana maxaa ku keenay balay sheeg markaa buu yaa rasuulallah walwali walbahaar baa hayay buu walwali walbahaar oo xaquu kaaga yimiday daylna igu leeyahay oo la iga rabay inaan deenkii aan iska celiyo xilligii la celinaya la jooga aniguna waxaan ku celiyo ma haysta buu markaa buu nabigu ku yiri sallallahu alayhi wasallam duca ayaan ku barayaa duco hada ducada galinka hore aad akhrisatid hal mar galinka dambana hal mar aad akhrisatid همجنا إلهي عز وجل وكاقاضيا وإلهي همجا وكاقاضيا دينكنا إلهي وكابحنا يا أبو نبي كولي وصلي رسولك نبي مورا عبد الرحمن بن عوف تقول دينك كابحيو عثمان بن عفان تقول دينك كابحيو أبو بكر بحال كان جوجو دينك كابحين مورا النبي صلى الله عليه وسلم وحاول النبي بري الدعاء أيوه بري ده دعاء ده قال لك وراء تلاد المر قال لك دمر المر تلاد همجا كوهينا والله قال فيديا دينكنا إلهي بكا بحنايا برقام النبي دعاء أبو سيي اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال أبي أمامة رضي الله عنه دعاء بقاتي مركب وحول دعاء بان بلابون أخرستي همجي هي إلهي وإيقف فيدي دينكنا إلهي وإيقف بحيي لكن ربنا إسرائيل ها سقالي سقاشك النفقوي يقول نين عالمة أو المسألة الدينية ويدية الماما نين راهبة أي الله تلمام الراهب كو أنك عابدك عبادة بدن له لكن قنتي سأحكامته أيرتهي ويان لأن مركز ويمد وحو كيري سقالي سقاش النف بانقوية توبد ميان لهي مركابور ما يادقو توبد مليهد فكمل به 100 بالير بقول كيبو سقي كاغا دغو قورتو كغويه سقي بقول بو كاغا دغي hadana ninkii uu fariisan waayay wuxuu yiri ila raadsada buu ila raadiyo ila ii doondoono ii tilmaama nin caalima oo mas'alada aan weydiiyo toobada markaas fadulla ala caalimin nin caalima oo ahkaamta yaqaan ayaa loo tilmaamay لأن عابد كست عالم ما هي ما ليدي لكن عالم كست عابد ونقون كرا عالم كنا وعندها أمضى ويان نك عالم كفقيه دين تيقانا وعنده أمضى وحكو أركيس علماءه عام هذا علماء ويدو عام هذا سوى عام عند بشيء أجو وحمان تنولش مسلمين تو أيلب قلبا قدني سوى عينك أيلك عكوفين لأن عامد علماء كما حنا عامد ما أنت سياسيين تكو حران تاهي سياسي قلنا ماها مد عنده سؤال شقينا يعني قلبي سي مسكحدي سؤال فران تاهي ماها ومن نولش الدنيا ده يقانا نولش آخرة كم دو يسجنا لذلك أنك سوحوا رات سدين عالمة لأن علماء وعنده أمد ويان هذا العالم هذا علاقة الله يالته
bal diintaada waxaad ku caabudaysaa si cad ilaahay ku caabudaysaa balladh naxariis diintaada waxay noqonaysaa diin waasicay noqon deedna markaasaa nin caalimaad loo tilmaamay caalimkiibuu u yimiday masalad buu weydiiyey wuxuu ku yidhi 100 naf baan dilay toobad miyaan leeyahay markaa buu haa toobad waad leedahay buu ku yidhi toobadda iyo adiga cid inay dhex mari kartaa ma jirto toobadda waxay ka dhaxaysaa addoonka iyo rabbigii 100 nafood haddaad dishay toobadaada haddaad doonay in laga aqbalo oo ay ansaxdo waxaa shuruudeeda ka mid ah waddankan aad ku nooshahay waa dhul xun weeyaan oo macnaha dad xunxun baa ku nool dadkaasi waa dad mar walba dhiigga daadinaya oo dagaal iyo rabshad iyo maaragtaan qaylo mar walba u taagan iyo dhibaato u taagane ka dhaxbaxa buu ka yidhi mujtamacan oo xaggee tegaysaa mujtamac wanaagsan baad iyaa kuu tilmaamaya dhulkaasaa tegaysaa dhul laydhaa meel heblaayo dhulkaa dad wanaagsan baa ku nool oo ilaahay halkaa ku caabudo dadkaasaad u tegi deedna ilaahay la caabud buu ku yidhi dadkaas deedna way sidii buu yeelay ninkii waddankii uu dhiigga uu ku galo dhagarta uu ku galay buu bedilay waddankii uu u hijroonayay dadka wanaagsan ay ku noolaayeen isagoo aanan gaadhin ayaa ajashiisii dhexda ku qabato oo u dhintay malaa'ikatul cadaab iyo malaa'ikatul raxma isku qabatay buu nebigu yidhi calayhi salaatu wassalaam innakuna sida qofka bini'aadanka marka ruuxdu ay ka dhacdo aan jidhkiisa maaragtaane kafanka iyo nacashka iyo qabriga aanu la diyaargaroobayno ayaa qofka maaragtaane ruuxdiisuna malaa'igta ayaa u imanaysa hadduu ahluljanno yahayna malaa'ikatul raxma qaadaysa buu nebigu yidhi hadduu ahlunnaar yahayna malaa'ikatul cadaab baa qaadaysa deedna labadii malag baa isku yimid oo qaar waxay leeyihiin waa ahlannaar 100 naf buu qabaayo waa dhagarqabe ninkani naar baan u qaadanaa ruuxdiisa annakaa qaadayna qoladii kale waxay leeyihiin jaa'a taa'iban ila allaahi caza wajalla ilaahay buu u soo noqdo uu toobad keene maaragtaanay jannada iyo xagga naxariista ilaahay baa loo qaadayaa markaasaa malag suurad aadamiye leh ayaa ilaahay u soo diray tabaaraka wa tacaala deedna markaasaa malagii la yidhi waxaad mitiraysaa dhulka uu dembiga ku galay iyo dhulka u hijroonayay qiyaas baa lagu yidhi deedna markaasaa waxaa u batay dhulkuu u socday buu markaa ayuu u dhowaaday taaka intaa leeg baa la yidhi wa fii riwaayatin riwaayad kale wuxuu nebigu yidhi ilaahay baa amar ku siiyey dhulkuu u socday ee dadka wanaagsan ay ku noolaayeen baa lala hadloo lagu yidhi addoonkaasi waa toobad keene u dhowow deedna taaka intaa leeg buu u dhowaaday taaka intaa leeg sidaasee markaa malaa'igtii naxariistu ay ku qaadeen oo ahluljanno ku noqdaan la yidhi waa sharcun liman kaana qablanaa bay culimmadu yidhaahdeen ummadihii naga horreeyey toobadooda in la aqbalo waxaa loo shardinayay inay mujtamaca ay ku dhex jiraan ee liita ee fasaadsan ee dhiigga daadinaya ee dagaalamaya inay dadku ka dhex baxaan oo mujtamac wanaagsan oo diin lo alla ka cabsile meeshay joogaan inay u hijroodaan ayaa maaragtaanay shareecadihii ummadaha hore ka mid ahayd ama innaka shareecadeenna toobadda culummadu markay ka hadleen waa kuwii lahaa toobaddu markay addoonkiiyo ilaahiisa ka dhaxaysa waa 3 weeyaan 3daa haddii lagaa helo toobadaadu way ansaxaysaa haddii mid lagaa waayo toobadaadu ansixi mayso ka koowaad waa kii culummadu waxay yidhahdeen dembiga aad ku jirtay waa inaad ka dhex baxdaa ta labaadna maaragtaanay dembiga aad samaynaysay waa inaad casimiya go'aan aad la timaadaa inaad mar labaad dibdamba dembiga aanad ugu noqon ta saddexaadna waa inaad markaad xasuusato dembiga aad samayn jirtay waa inaad ka qoomamaysaa ood ka nadamootaa 3daa haddii qofka taa'ibka laga helo toobadiisu way ansaxaysaa 3daa ha shardi haddii mid uu ka maqan yahayna toobadaadii waa naaqis weli weeyaan haddii bani aadan xaqiisii meesha uu ku jirana shardi afraad bay culimmadu sheegeenoo waxay yidhaahdeen waa inuu qofku maaragtaane xaqii bani aadanee lagu lahaa waa inuu qofka wixiisa iskaga celiye weeyaan ama waa inuu cafis ka dalbaa marka ummadihii naga horreeyey toobadooda waxaa looga dhigaya shuruud inay ka dhex baxaan mujtamacan xun ee dhiigga ay ku dhex daadiyeen oo deedna mujtamac wanaagsan oo meel wanaagsan ku nool inay raadsadaan baa shardi looga dhigayay nin saxaabiya oday baa u yimiday rasuulka isagoo inantiisii gacanta haya markaa buu nebiga tusay calayhi salaatu wasalaam yaa rasuulla eeg buuhi ninkii sacad binu rabiic ahaa inantaydii siduu u dilay baleeg buu ka yidhi markaa wejiguu ka dilay oo calaamad baa ku taalla markaa buu nebigu u cadhooday rasuulku maalinta wejigiisa isbedelay shareecadduna ma soo wada degina kolba inbaa nebiga ku soo degaysa dushiisa wuxuu yidhi orodoo u geeyo ha ka jarata buuhi siduu ugu dhiftay iyadna ha ugu dhifata buuhi
markay dhaqaaqeen ay sii jeesteen ayaa soo degay waxyiga ilaahay nabiga ku soo dejiyay markaa buu nabigu yiri soo noqda way soo noqdeen markaa buu nabigu yiri aradna shay wa arada Allahu shay'an akhar ba nabigu yiri sibaan inakuna dabacsanayn ilaahayna si kale u damcay buu rasuulku yiri iga dhageystay buu nabigu yiri aayadan ay ugu soo degtay الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع سومحن إلى آخر الآية آية داسا مركا النبي كسو دكتين لقو عدين يو قوامة إن الرقو أيليهين هقان كالرير كالرقا أيا إسكالي هقامنت taladu waxay ka go'aysaa waa ninka xaaska waa la tashan karaa ninku naag xaaskiisa tala uu weydiin karaa laakiin go'aan qaadashada odayga ayaa iska leh oo maxaa ilaahay yiri qiwaamada rag waxay ku heleen waa laba shay marka hore isku ilaahay ba kala fadlayba isku karti maaha isku quwad maaha isku dulqaad maaha isku aqli maaha ilaahay ba kala fadlay azza wa jalla nacam dumarka ragga shiddada adayga u qaaliba halka dumarkana dabacsanaantu ay qaalib u tahay odayga iyo ragga ka kanaan iyo adayg ayaa maaragtaan naxariis darro ayaad moodaa in ragga ku jirto halka hooyaduna ilaahay qaalib uu uga yeelay inay noqoto hooyo naxariis badan oo damqasho badan oo dhibrin badan marka qawaamada raggu waxay ku heleen waa laba shay marka hore waa abuurka ilaahay baa kala fadlay bini aadanka marka labaadna baa la yidhi maadaama iyagu ay nafaqeynayaan reerka aqalkii iyaga laga rabaa inay dhisaan oo dharkii ciyaalka u soo iibiyaan oo masaariifta ay bixiyaan wixii reerka baahi uu lahaa intay raggu dabooli karayaan ragga looga fadhiyaa baahida inay daboolaan nin sheekha bari qisam uga sheekeeyay wuxuu yidhi nin caalima oo ardaydu aad u jeclaayeen xerta aad u jeclay iska daa xerteen mujtamac oo dhan ba aad u jeclaa akhlaaq wanaagsan buu ilaahay siiyey taqwad baa ilaahay siiyey cilmi baa ilaahay siiyey alla ka cabsi baa ilaahay siiyey laakiin ninka wuxuu ilaahay ku hagaajiyey islaam kulul oo dabeecad adag oo markuu inta uu magaalada socdana kabihiisa inuu qaato looma ogolo masalladu ku tukanaya inuu qaato looma ogolo aqalka markuu galana islaanta ku shaqaysata dhariguu karin biyuhu dhaamin dabkuu shidi iyada dhan buu cuntada siisiin markaasay odhanaysaa magaaladu sheekh bay ku haysataaye aniga agteeda shaydaan baa tahay ii khidmee bay odhan hadal ka keeni maayo uu khidmayn uu khidmeeyaa una ma hadlo ma sheekeeyo awal aqalka gudihiisay ku dirdiran jirtay baa layidhi markii dambe waxay ku tidhi anu haddee toola waan daalay xaabada ii soo guro biyahana ceelka iga soo dhaami ceelka ninka sheekhana waa ninka magaaladu kabihiisa inuu qaato uma ogolo jacaylo iyo ixtiraam ay u qabaan markaasuu yidhi ilaahow astur ilaa haddii la ogaado sheekhii xaabo guraaya oo biyihiina dhaaminaya dadka waxay odhanayaan war sheekha aqalka dhib baa ku haysateen in kaarqabtadan waa maxay sheekha dirata waa la habaarka ku dhici taabuu markaa uga baqayaayo wuxuu yidhi ilaahow miskiinta aadii xaaska aad iga dhigtay umul ciyaalka ilaahu ha igu hoojina maanta igu astur magaaladii buu ka baxay ardaydii buu yidhi muraad yar baan leeyahay iska hadhay buu marka xaabadii buu soo guraya dhul cilmuu tagay xaabadii buu soo guray meel buu ku ururiyey biyihii buu dhaamiyey ilaahow aniga islaantaas ilaahow islaantaayo ummadda kale ilaali buu yidhi libaax socdo unbaa u yimid oo hor fadhiista la yidhi sheekhay xaabadiiyo quryihii buu saaray libaaxii biyihiina dhinaca kale u ka soo saaray magaaladiiba la soo maray sheekhiioo libaax wata markaasaa la yidhi awalba inuu mu'min ilaahay ku xidhan oo karaamo le waan ogeyn inuu ahaaye maantayba karaamadiisii daahirtaa la yidhi albaabkii buu hor dhigay islaantii meel bay ka qaawisto libaax bay aragtay alaabta usoo sida ilaahu inuu soo gelin libaaxaas ilaahu libaaxa ha igu soo gelin dibadiibuu markaa libaaxii joojistay halkii buu kaga dhaadhiciyey xaabadii biyihii libaaxuu iska socday
isagaa markaa xaabadii aqalka soo geliyey biyihii buu soo geliyey markaa bay ku tidhi dameerka foosha xunne maanta soo rateen ayaa kugu caawiyey ka tegi nabiga ku salliya ina kayda kuna cadiim ilaahay baa sheegay soo maa hadda way arkaysaa indhahayga ilaahay inuu u gargaaray ninkaas maca daalika haddana ma sadaqayso waxay ku leedahay war dameer fool xumaad wadata maanta xaggeed ka keentay iska aamusay markaa muddo yar kadib islaantii baa ka dhimatay sheekhi maadaama islaantii ka dhimatay iyadoo aanan la ogaan dhibta isaga ay ku hayso dadkii magaaladii baa isku tegay waxaa la war sheekha gabadh wanaagsan oo akhlaaq wanaagsan oo xaaskiisii hore kaloo lamida waa in loo doondoonaa gabadh wanaagsan baa loo keenay oo sheekha qadarkiisa garanaysa daadna ma aragtaanay markaasa haye aqalkii baa loogu hooyey dee waxay tidhi way og tahay sheekhu inuu libaax soo raran jiray ma og tahay iyadna waxay leedahay sheekhu libaaxiyo wuxuu soo rari doonaa iyo maaragtaanay libaaxi baa biyaha iyo xaabada kuu keeni doona dee markaaba de sheekh xaabadii iyo biyihii way naga dhammaadeene markaasuu dhib male iska fadhi insha alla ilaahay baa noo keeni dooneen dhulkii buu tegay libaaxii ma iman dee markaas isagii baa marka ay noqotay inuu xaabadiina soo guro biyihiina soo qaado markaasuu magaaladii la soo dhex maray waran inkaar qabtada sheekha aan u dhisnay ee sheekha raratay maxay ahayd oo sheekh libaaxiina may baa lagu yidhi wuxuu ihi libaaxii islaantii hore iska lahayd buu nabiga ku salliya akhlaaqda allah hayna siiyay innaka yacni qisadaasi waxaan u soo qaatay haddii akhlaaq wanaagsan aada leedahay dadka ugu xaqle inay arkaan waa dadkee waa dadka guriga jooga caaisha radia allahu canha baa nabiga la weydiiye oo lagu yidhi nebiga akhlaaqdiisa ka warran baa lagu yidhi aqalka markuu joogo siduu ahaa marada ka googo'day buu nebigu karkaran jiray tidhi kabta ka go'dana isagaa gacantiisa ku tolani jiray neefkiisana isagaa maalan jiray annakana aqalka dhexdeeda adeeg waxaan u baahanay buu noo qaban jiray tidhi laakiin salaaddu hadday gaadhay tidhi caaisha nebigu salaaddu usoo bixi jiray bay tidhi ninkee baa maanta odhanaya intuu xaaskiisa ku yidhahda iyo hablihiisa aabba bal maanta nasta anaa dhariga inii karana muu jiraa aniga maanta dhari karinta igu daaya ma dhici karto waxaaban u aragnaaba ihaano inay tahayba inuu ninku reerkiisa u khidmeeyaa uu xaaskiisa u khidmeeyaa uu ubadkiisa u khidmeeyaa uu noqdaa nin adeegayo akhlaaq wanaagsan waxaan u aragnaaba nin doqon oo islaamtu ay ka adag tahay inuu yahay suhayb aruumi radia allaahu canhu ayaa markuu hijroonayey ardulxab markuu hijroonayey madiinata almunawara nimankii mushrikiintu dhexday u galeen markaasay ku soo baxeen nin maalqabeena buu ahaa suhayb radia allaahu canhu abaa yaxya waxay ku yidhaahdeen suhaybow adigoo sacluuka oo faqiira ayaad magaalada maka noogu timiday waxaa dhaqaale eed maanta haysatana magaalada maka dhexdeeda ayaad ka samaysay ma waxaad doonaysaa dhaqaalihii intood qaadid maka dhexdeeda aad ka samaysay inaad madiine la tegtid may dhaqaalaha ma qaadan kartid baa lagu yidhi waa ku dilaynaa wuxuu yidhi waad idilaysaan laakiin anna waa nidili buuhi anna wuxuunbaa niga diliya ogaada buuhi dagaalkaan aqaanaa buuhi nin waxaan ahay ruumiya leebka sida loo gana ayaan aqaanaa haddaad iddishaan waad iga tiro badan tihiin laakiin anna rag baan galaafan buu ku yidhi haddaad dhaqaalo uun doonaysaan dhaqaalaha anaa ay nisiin buu yidhi lacagtaydii oo dhan waa nisiin intaan watana gacantaan iniga saari magaalada maka een ka soo baxay wixii dhaqaale meel yaalana waa nii tilmaami laakiin dariiqaa ii banneeya buu ku yidhi dariiqaas waayo nebigaygii moxamed calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadaydii baa ka daba tegayaa iimaankayga iyo diintayda ayaan ilaalsanayaa iimaankayga iyo diintayda wax walba aniga igala qiimo badane dariiqaa ii banneeya buu ku yidhi hanmare agtooda diintaa qiimo leh agtooda maxaa qiimo lahaa iimaanka lacagtu qiimo ma leh waa hagaag bay yidhaahdeen lacagtii buu gacanta ka saaray waa kanan qaata magaalada makana madaxweynaha lacag baa igu aasana ka soo faqday buuri halkaana kala soo baxa laakiin wadada ay banneeyay buu ku yidhi rasuulkaygii baan u tagaya calayhi salaatu wasalaam ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله هجرة والسعودان
hijra mu'abbada maaha hijro yaro waqti yar oo kooban intay maqnaadaan ay magaalada Maka ku soo noqonayaan maaha waa hijra mu'abbada aqaladoodii bay ka tagayaan beerahoodii bay ka tagayaan tijaaradoodii bay ka tagayaan qaraabadoodii bay ka tagayaan waxay doorteen Ilaahay rasuulkiisa doorteen wixii oo dhanba uu siiyay wadadii bay u baneeyeen markaas uu socday hal saaca gudaheed ayuu ahaa nin qaniyo malqabeena saacad kadibna wuxuu noqday nin faqiir uu noqday isagoo faqiira oo gacantiisa shilin ku jirin ayuu magaaladii Madiina soo galay baa la yidhi ayaa soo dhaweeyay nabigeena Muhammad alayhi salaatu wasalaam oo muxuu nabigu ku soo dhaweeyay rabihal bay'u ya aba yahya rabihal bay'u aba yahya bayciga ganacsiga aad ilaahay la gashay waad ka macaashay buu nabigu ka yidhi maanta laana ikhtibaar buuha ikhtibaar ilaahay rasuulka oo dhinaca ayaa adduunyadaadii oo dhinaca kala dooro bay ahayd deedna ilaahay azza wa jalla wuxuu ku ilhaamiyey saxaabigaas inuu yiraahdo lacagtu qiimo ma leh qaata laakiin nabiyullaahi Muhammad baan ka daba tagay faraha iga qaada wadada ii banaya imtixaan deedna markaasuu nabigu leeyahay rabihal bay'u aba yahya baayaca mushtarka maanta ilaahay aad iyo adiga ilaahayni dhexmaray waad ka macaashay buu nabigu alayhi salaatu wasalaam yaa u sheegay nabiga qisada dhacday waxyi baa nabiga loogu sheegay waxyi meesha qadiyadu ay ka dhacayso waa Makay u dhaweyd teleefoonadan zamankan aan haysanay aalaadkan aan ku wada itisaalayna sariica ee wixii oo dhan ba adduunyada markiiba u gudbinaya ma haysan laakiin jibriil baa nabiga ku soo dago uga waramaya wa minan naasi man yashri nafsuhu ibtigaa'a mardaatillaah wallahu ra'uufun bil ibaad muuminiinta waxa kamid ah ilaahay leeyahay mid naftiisii iyo xoolihiisii iyo dhaqaalihiisa ku iibsanaya ilaahay ridihiisa wa aba yahya ayaa kamid ah lagu yiri suhayb ar-rumi baa soo socda oo dhaqaalihiisii ka doortay ilaahay rasuulkiisa inuu raali geliyo ka doortay lacagtu agtooda qiimo ma leh qabiilku agtooda qiimo ma leh dibloomku agtooda qiimo ma leh aqaladoodu agtooda qiimo ma leh dhulkoogu agtooda qiimo ma leh agtooda waxa qiimo leh ilaahay rasuulkiisa sallallahu alayhi wasallam